السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنالك مركل السوداء وهذا مقال كان waxaan rabaa inaan idin kula wadaago madaxweyne Trump oo shalay sheegay in dadka Soomaalida ah ee lagu helay musuqmaasuqa sharciga laga laaban doono kadibna la masaafurin doono arintaasi waan idin la wadaagayaa maanta ayaa markale dowladda Mareykanku waxay ku dhawaaqday in wadamo 75 wadan ah oo Soomaaliya ay ku jirto laga joojinayo visa processing oo wax visa aan loo process gareynaynin wadamadaasi 75 wadana sababaha ay u cugsanayaan maxay tahay wadamadaasina maxay yihiin waan idin la wadaagayaa dacwad oogihii federaalka ah ee gobolka Minnesota u qaabilsanaa dacwad ku soo oogista dadka lagu helay musuqmaasuqa oo Soomaali badan dacwad ku soo oogay ayaa isaga iyo 5 xubnood oo kala shalay ay iscasileen maxay tahay sababta isku casileena waan idin la wadaagayaa arrimahaasi iyo arrimo kale ayaan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada madaxweyne Trump oo shalay ka hadlayay markii uu booqday xarunta gawaarida lagu sameeyay Ford ay iska leedahay oo ku taala magaalada Detroit ee gobolka Michigan ayaa halkaasi khudbad dheer ka jeediyay madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka hadlay howlgallada ay ciidamada ICE ka wadaan gobolka Minnesota waxana uu sheegay in kuwa dambiilayaasha ee ugu xun ay gacanta ku soo dhigayaan dilayaasha kuwa kufsiga ku kaca kuwa daroogada ka ganacsada arrimahaasi ayaan waxaan doonaynaa dad inaan gobolka ka nadiifino ayuu laakiin dad waxa jira aan doonaynin in arintaasi aan qabano ma waxay doonayaan inay la noolaadaan kuwa daroogada ka ganacsada kuwa dadka dila iyo kuwa kufsiga geysta ayuu Trump sheegay waxa sidoo kale uu ka hadlay madaxweyne Trump uu yiri in qof kasta oo soo galootiya gaar ahaan Soomaalida ayuu carabaabay oo lagu helo musuqmaasuq waxa yiri xabsi ayaan dhigaynaa markaas kadibna sharciga ayaan kala laabanaynaa oo dhalashada Mareykanka markay xabsigooda dhameystaana waan masaafurinaynaa Soomaali oo kaliya ma ahan ayuu yiri laakiin meel kasta ka imaaw halkii aad ka timid ayaan dib kuugu celinaynaa ayuu yiri inta aan dhalashada kala laabano marka aad xabsigaada dhameysato marka wuxuu yiri haddii aad u timaado in aad xaddo lacagaha canshuur bixiyaasha Mareykanku ay bixiyaan xabsi ayaan ku gelinaynaa sharciga waan kala laabanaynaa kadibna waan ku masaafurinaynaa haddaba madaxweyne Trump oo arrimahaasi khudbadii shalay uu ka jeediyay Detroit Michigan ka hadlayayna dhinaca kale maanta dowladda Mareykanku waxay ku dhawaaqday in wax visa ah aan loo process gareynaynin amaba aan loo sii wadi doonin halka uu joogana aan la dhaafinaynin 75 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto wadamadaasi waa wadamo aad u fara badan waxana dowladda Mareykanku ay u cugsanaysaa sharci la yiraahdo public charge oo Trump afartiisii hore oo hore uu horay u soo rogay public charge macnaheedu waxa ay tahay dadka markay imaadaan Mareykanka doonaya inay ka faa'iideystaan Mareykanka sida dadka food stamp ka qaadanayo dadka lacagaha cash assistance-ga qaadanayo iyo sidoo kale dadkaasi oo idil waa kii Trump horay afartiisii sano hore u yiri dadkaasi oo markay Mareykanka yimaadaan dowladda Mareykanka benefits ka qaato wax green card ah lama siinayo ama waxa taa kaar caafimaad ka qaado arrimahaasi oo idil ayaa Trump uu afartiisii sano hore uu ka dhawaajiyay marka hadda isla arintii ayay soo celinayaan wadamadaasi waa 75 wadan Soomaaliyana waa ay ku jirtaa wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay tiri waxa aan isticmaalaynaa siyaasad horay u soo jirtay taasi aan eegayno dadka xaqa u leh soo galootiga oo marka ay Mareykanka yimaadaan doonaya inay noqdaan public charge oo Mareykanka ay ka faa'iideystaan deeqsinimadiisa dadka Mareykanku lacagaha canshuur bixiyaasha ay bixiyaan marka 75 wadan dadka ka imaanaya ay tiri wasaaradda arrimaha dibadda waxa hakad la gelinayaa oo wasaaradda arrimaha dibadda ay hakad gelinaysaa in wax visa ah loo process gareeyo ilaa inta laga qiimeynayo isla markaana waxaan ka hortagayna ay yiraahdeen in dadkaasi wadamada ajnabiga ah ka imaanaya ay ka faa'iideystaan lacagaha ceerta oo Mareykanka ay bixiso iyo public benefits-ka sidoo kale dawladdu ay bixiso dadka shacabka la siiyo marka waxay leeyihiin qof kasto noo imaanaya waa in uusan noqon qof inaga wax naga doonaya waa inuu noqdo qof wax nagu soo kordhinaya marka sida hadda hadalkooda ka muuqata dadkaasi ma ahan dadka ay viisayaasha damaba xaas amaba lamaane isku dacwoonaya ama hooyo caruurteeda u dacwoonayso qofku waa inuu noqdaa qof isagu isku tashta oo shaqaysanayo dawladdan wax uga baahnayn qofka Mareykanka imaanaya inkastoo aysan si kala bixin oo aysan sheegin dadka dacwadahaasi ku imaanaya viisayaasha oo loo dacwoonayo in ay ku jiraan marka siyaasadan horay waa u jiri jirtay Trump xilligii uu 2019 madaxweynaha ahaa
ayuu adeegsaday laakiin Biden ayaa markii sanadkii 2022 dib uga laabtay waxaana uu sheegay dadka full stamp-ka qaata iyo sidoo kalena barnaamijka la yiraahdo WIC iyo Medicaid-ka iyo housing vouchers-ka dadka qaata in iyagu aysan ku lug lahayn arrintan. Haddaba 75 wadan oo maanta dowladda Mareykanku ay ku dhawaaqday inay xaqad gelinayso in wax visa ah loo process gareeyo maxay kala yihiin. Wadamadan waxaa ka mid ah Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, and Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazil, Burma, Colombia, Cameroon, Cape Verde, in Colombia, Cote d'Ivoire, Ivory Coast, Cuba, Democratic Republic of Congo, Dominica, Egypt oo Masar ah, in Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Liberia, in Libya, Macedonia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republic of Congo, and Russia, Ruushka waa ay ku jiraan, Rwanda, waxaa ku jira jasiiradan yar ee la yiraahdo St. Kitts and Nevis, St. Lucia ayaa ku jirta waa jasiiradaha Caribbean ku yaala, St. Vincent ayaa ku jirta, sidoo kalena waxaa ka mid ah in wadamada Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Syria, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan iyo waliba Yemen. 75 wadan waa 75taasi wadan oo la yiri dadka ka imaanaya viisayaashooda lama process gareynayo. Marka dowladdu ma aysan sii kala saarin waa aniga idin sheegay January in sidoo kale ay jirtay in wasaaradda arrimaha dibadda ay joojisay wadamadii travel bank la saaray in wax viisa aan la siinaynin. Haddaba marka booskan goorma ayuu bilaabanaya? waxa uu bilaabanayaa 21 bishan hadda maanta bishu waa 14 marka 7 maalmood kadib ayaa booskan uu bilaaban doona oo hakadka la gelinayo in wax visa loo process gareeyo dadka ka imaanaya 75taasi wadan oo Soomaaliya ay ku jirto. haddii dowladdu faahfaahin kale oo dheeraad ah ay ka soo bixiso waan idin la wadaagi doonaa. dhinaca kale gobolka Minnesota waxaan ognahay howlgalkii ciidamada ICE weli inuu ka socdo, xaaladda weli qabqabashadu zaa'id ayay ku socotaa. marka shalay waxaa dhacday in dacwadoogihii federaalka ee gobolka Minnesota u qaabilsanaa ninka la yiraahdo Joe Thompson ama Joseph Thompson waa ninkii dadka Soomaalida ah oo musuqmaasuqa lagu helay dacwadda ku soo oogayay. waxaa ka horreeyay Andrew Lugar oo isagu bishii January ee sanadkii hore iscasilay, marka isaga ayaa hadda si ku meel gaar ah xilka u sii hayay. isaga iyo 5 xubnood oo la shaqeynaysay ayaa wargeyska New York Times waxa uu qoray inay iscasileen shalay. sababta isku casileen ayaa waxa lagu sheegay in wasaaradda cadaaladdu ay tiri waa inaad baaritaan ku sameysaan gabadhii la socotay Renee Nicole Good oo arbacadii la soo dhaafay 7 ka hor askari ka tirsan ciidamada ICE oo Minneapolis ku dilay in lamaana isqaba ay ahaayeen waa dadkan qoomuluudka ay labadan gabdhood ahaayeen, marka midda dhimatay iyo midda noolba. marka Beck ayaa la yiraahdaa. marka waxaa la yiri gabadhaasi la socotay Renee Good markii ay dhimanaysay oo gaariga markaas xitaa doonaysay iyadoo dhinacaasi ka fuusho inay wax dhaqdhaqaaqa ururo ay la leedahay, ururo dhinaca bulshada u dhaqdhaqaaqa baaritaan ku sameeya. marka waxay yiraahdeen intii la baari lahaa qofkii eedeysanaha ahaa, qofkii victimka in la baaro oo dhibanaha ahaa, arrintaasi darteed ayaa waxa la leeyahay waa isku casileen. marka xubnaha kale ee iscasilay Joseph Thompson marka laga soo tago oo isagu si ku meel gaar ah xeeralyaha federaalka ee gobolka Minnesota u qaabilsanaa waxaa ka mid ah Harry Jacobs, Melinda Williams, Thomas Calhoun Lopez iyo sidoo kale xubno kale. waxaa la leeyahay sidoo kale xubno kale waxaa jira wasaaradda cadaaladda iyaguna u qaabilsanaa dhinaca civil divisionka ama civil rights divisionka in xuquuqda dhanka madaniga qaybo kale oo iyaguna u qaabilsanaa oo 5 ah iyaguna waa is casileen. marka waxa ay meesha ka muuqata marka inaysan dowladda ku taageersanayn in ay eedda dusha ka saaraan gabadhii dhimatay, askarigii dilayna ay difaacaan oo yiraahdaan askarigan waa uu istifaacayay. dacwadoogayaashan marka sidaa darteed ayay isku casileen markii la yiri baaritaan ku sameeya gabadhii Renee Good la socotay oo Beck la yiraahdo in kale lamaane ayay ahaayeen sida la sheegayo. sidaas darteed ayay marka xubnahaasi ay isku casileen. dad fara badan waxay soo weydiinayeen baasaboorkan la iska laabanaya cilmiga ma jirtaa. arrintaasi waa dhici kartaa. baasaboorkaada either waa la kansali karaa adigoon ogeyn inkastoo ay sharci darro tahay oo qofku uu dacwad dowladda ka gudbin karo,
waxaa la sifay flag ayaa lagu samayn karaa oo baasaboorkaada ayaa lala socon karaa xilliga aad baxayso marka arrimahaasi oo idil waa ay jiraan marka dadka Soomaalida waxa laga rabaa inay ka digtoonaadaan marka aad baxayso ka hor inta aadan bixin waa inaad iska xaqiijisaa baasaboorkaadu active ma yahay ma shaqaynaya mise ma shaqaynayo marka dad fara badan ee arrintaas ku dhacday passport controlka waa inaad wacdaa numberkan ayay leeyihiin arrintaasi dad badan oo Soomaaliya hore ugu dhacday si qaladana way ku dhici kartaa si ku talagal ahna way u dhici kartaa marka dadku inay iska hubiyaan inta aadan safrin ka hor xilligan hadda lagu jiro oo xaaladdu ay sidan u kacsan tahayna Soomaaliya inaad u safarto kugulama taliyaan marka aad baxayso lagulama hadlayo ilaa waa socotaa laakiin soo laabadkaada maxaa kugu dhici kara cid og ma jirto dad fara badan oo green card leh kuwa baasaboorro wato ayaa dhibaatooyin kala duwan loo geystay marka dadku inay iska hubiyaan ka hor intaysan bixin horta baasaboorkooda active ma yahay boorsadu igu jiraa tikidan jaranaya waa iska baxaya macnaha airportka marka tagto ayaa lagu dhihi karaa baasaboorkaadu maba shaqaynayaba marka inay iska hubiyaan teeda kale waxaa jirta gabar Soomaali ah oo turjubaan ah ayaa ila soo xiriirtay oo Minnesota ku nool waxay tiri dadka la xiray ayaan turjubaannimo u sameynaa marka arrin waxaa jirta ay doonaysay inaysan iyadoo aysan ka hadlin laakiin aniga ila wadaagto oo ii soo gudbisay si aan idinkana idinla wadaago dadka la qabanayo gaar ahaan dadka waddanka sharci darrada ku soo galo darbi ka soo boodka magaca social media ugu qoran iyo magaca isku dhiibeen isku mid maaha marka qofka marka telefonkiisa waa laga qaadaya wax kasto ku jirana waa la ogaanaya qabiilka uu isku dhiibay iyo qabiilka uu yahay marka uu TikTok ku jirana isma lahan calan kale ayuu babinaya calanka uu sheegtaan ahayn dad kale ayuu difaacaya waxyaabaha soo idilna telefonkiisa ayay ku jiraan marka garsooraha la horgeeyo waa cadeymihii ayaa la tusaya leey qofkan sidan ayuu isku dhiibay magacana social media ugu qoran marka at least magacaada rasmiga oo isku dhiibtay social media-hada ku qoro qabiilka haddii aadan xitaa doonaynin qabiil kale oo yar aad isku dhiibto qabiilkaaduna uu landheere yahay isku day inaadan TikTok-gaada iyo barahada bulshada adigoo calan wato difaacayo qaylinayo aadan soo gelin arrintaasna dad fara badan oo Soomaaliya ku dhacday gabadhaas waxay tiri dad fara badan oo u turjumayay ayaan ku arkay arrintaas oo sharcigii loo diiday isla markaana garsooruhu ku amray in la masaafuriyo marka arrintaasina waa ay jirtaa dadka Soomaalidu inay ogaadaan in barahada bulshada wixii ku jiro telefonkaada laga shubanayo oo la ogaanayo marka lagu qabto kadib marka arrimahaasina inay ka digtoonaadaan gabadhu waxay tiri dadkeena Soomaalidu ha ka digtoonaadaan gabadhaas waa mahad celinaya aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo